walwal iyo xanuun ku hayn maaha. waa xasan sheekh iyo farmaajo hawada isu mariyay hadalla siyaasadeed oo la isku durayo maxkamadda ciidamada qalabka sida oo baarlamaanka Soomaaliya u gudbinaysa xasaanad ka xayuubin si loo maxkamadeeyo xildhibaano loo haysto colaad hurin. haddaba waxaan idiin haynaa halka uu salka ku hayo go'aanka garsoorka iyo eedeymaha loo haysto xildhibaanadaas. madaxweynaha Soomaaliya oo maamusay Cumar Cartan oo noqday garsooraha ugu wanaagsan ee Afrika iyo maxkamadda gobolka Mudug oo dib u bilaabaysa dhageysiga galdacwadeedka gabadhii sida arxandarrada ahayd loogu dilay magaalada Gaalkacyo. dhammaan wararkan oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka Soomaalida ee caawa. dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shariicada islaamka qaybaheeda kala duwan waxa loogu bishaaraynayaa in macadka Ibnu Cabbaas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxaana kamid ah culuumta shariicada oo ilaa 6 qaybood barashada af Soomaaliga iyo Carabiga Quraanka Kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba kasixidda carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee Quraanka haddii aad degan tahay magaalada Nairobi macadku waxa uu diyaar idin leeyahay macallimiin guriga kuugu iman karta faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal wararkeena caawa waxaan ku bilaabi doonaa xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa hawada isku mariyay hadallo siyaasadeed oo la isku durayo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si adag uga jawaabay hadallo dhaliil ah oo uu jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kadib markii uu sheegay in uu galay dalku xaalad adag oo halis iyo faqri ah. xasan sheekh oo ka hadlay arrintaas ayaa nasiib darro ku tilmaamay hadalladaas waxaana uu weerar ku qaaday hadalla afka ah dadka uu ku sifeeyay in ay fursad ay ka dhigtaan meelaha jilicsan ee dalku uu u nugul yahay. waxa uu carabaabay in magaalada Muqdisho maanta ka wanaagsan tahay sidii ay ahayd sanada ka hor isla markaasina dadka degan ay marqaati ka yihiin isbedelka ka jira dhinacyada kala duwan. sidoo kale waxa uu qiray in ay jirto baahi iyo faqri shacabka haysta balse waxa uu sheegay in dawladdu weli aanay haysan awood buuxda. dadka Soomaaliyeed ma baahan yihiin faqri ma jira ha faqri waa jira baahi waa jirta laakiin macnaheedu ma aha inaanan dawladdu hay-adaha iyo hoggaanka dawladdu inaanay ogeyn ma aha inaanay walwal iyo xanuun ku hayn ma aha laakiin u malayn maayo caqliga caafimaadka qaba inuu qabo ama isku qanci karo wiil kastoo Soomaali ah iyo gabar kastoo Soomaali oo soo qaan gaaray maxay shaqo u heli waayeen. hawshaasina ilaahay idinkiis iyada lafteeda mustaqbal aan fogeyn oo dhow Soomaaliya meel dadkeedu shaqo la'aadaan oo shaqo la'aan ay ahaadaan ma noqon doonto waxay noqon doontaa meel loo soo shaqo doontaa diyaaliya. dhanka kale madaxweynaha hore farmaajo oo kulan la yeeshay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dalku uu ku jiro xaalad cakiran oo lamid ah macluushii 1992 ee cagabarar. waxa uu xusay in 100 kun oo qof ay ku adkaatay helitaanka cunno maalin walba halka uu sheegay in qaarkood waqti ka waqti ama 24 saac mar uun ay cunno ay helaan. sidoo kale farmaajo waxa uu dhaliil adag u jeeday go'aanka dawladda Soomaaliya ku aadan arrimaha dhulalka. dadku waxay ka hadlayaanna wax aad u fara badan oo laga yaabo qaarkiin ama intiina badan inaadan maqal dhibaatada ka jirta dalka maciishada oo kale macnaha in qofkii $200 qaadan jiray bishii ama $300 inaysan ku filnayn $200 oo kale $400 ama $500 inaysan ku filnayn macnaha mushaaraadkii weli inuu meeshii uu taagan yahay guud ahaan dadka Soomaalida inay gaareen heer inay maalinkii hal mar wax cunaan haddii nasiib leeyihiin ama maalin dhaaf macnaha waxa uu leeyahay mararka qaarkood cagabar weliba ka daran xilligii oo dagaalka sokeeye oo aad u darnaa oo dalka ka dhacay in hadda ay ka daran tahay. saacadihii la soo dhaafay waxa baraha bulshada si weyn loogu hadalhayay ereyga faqri ee uu adeegsaday madaxweyne farmaajo inkasta oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu isna qiray in baahi iyo faqriba dalka ay ka jiraan. markan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in baarlamaanka federaalka ay u gudbin doonto codsi ah in
lagala laabto xasaanada xildhibaanaha lagu eedeeyay inay taageero u fidiyeen sida hadalka ay u dhigtay maleeshiyada ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Maxkamaddu waxay sheegtay in mas'uuliyiin xasaanad leh ay maleeshiyadkaasi siiyeen hub rasaas iyo lacago, sidoo kalena ay difaac ay uga galeen iyaga oo baraha bulshada ka taageeraya. waxa ay caddaysay maxkamaddu in ay soo ururisay cadeymo fara badan oo muujinaya in xubno xildhibaano ah ay si toos ah u taageereen amaba hoos ay yimaadaan maleeshiyadkii ku dagaalamay Walaweyn, kuwaasi oo geystay khasaare dil, gubis, dhac iyo dil joogta halkaasi ka geysteen amaba dilal ama jidgooyooyin halkaasi ka sameeyay, kuwaasi oo sababay in wadooyin badan ay go'aan. maxkamaddu waxay intaasi ku dartay in cadeymahaasi la horgeyn doono baarlamaanka. waa tan xeeraleynta oo hadlaysa oo uu hadlayo garsoore Axmed Cabdulle ee Buulakame. waxaa jira mas'uuliyiin xasaanad leh oo ka soo kala jeeda labada dhinac ee ku dagaalamay degmada Walaweyn. mas'uuliyiintaasi waxa ay maleeshiyaadka siiyeen hub, rasaas, lacago, sidoo kalena waxay ka difaaceen afka oo dhanka social media ay taageero iyo difaac la hortaagan yihiin mar walba. haddaba waxaan soo aruurinay ama helnay cadeymo fara badan oo caddeynaya in mas'uuliyiintaasi xasaanada leh ay taakuleeyaan ama ay hoos yimaadaan maleeshiyaadkii ku dagaalamay degmada Walaweyn. waxaan horgeyn doonaa cadeymaheena iyo codsi xasaanad ka qaadis guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dhanka kale maxkamadda ciidamada ayaa waxa ay shaacisay in amar soo qabasho nolol iyo geeriyahaba in lagu soo qabto koox baxsad ka ah oo weli uuna furan yahay go'aankaasi, isla markaasina ciidamada ammaanku awood u leeyihiin soo qabashada dhammaan xubnaha lagu riday dilka toogashada oo dhan 6 rag ah. waxaana lagu kala magacaabaa Cali Saaq Guleed, Fuad Axmed Maxamed, Deeqow Cismaan Nuunow, Ciise Cabdi Maxamed, Xuseen Maxamed Qaasim iyo Cabdi Cismaan Maxamed Tuure, iyadoo sidoo kalena 9 xubnood oo kale oo gacanta lagu hayay dil toogasho ku xukuntay. sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa waxa ay xabsiyo ku xukuntay kale dhowr xubnood oo kale oo lagu helay in ay kaalin ku lahaayeen dhacdooyinkii ka kala dhacay Walaweyn iyo Yaaqbari Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose, halka kuwa kalena dib xorriyadooda loo siiyay. markaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu maamusay Cumar Cartan oo noqday garsooraha ugu wanaagsan ee Afrika. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maantay madaxtooyada ku qaabilay garsooraha ugu wanaagsan ee Afrika ee sanadkan 2025 Cumar Cabdulqaadir Cartan. madaxweynaha waxa uu uga mahad celiyay guusha uu soo hooyay dalka, isagoo sheegay in abaalmarintani ay ka dhalatay hawl adag iyo dadaal muuqda oo Cartan uu ku muujiyay garsoorka kubadda cagta. garsoore Cartan waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku dhiirigeliyay in uu sii adkeeyo shaqadiisa, isla markaasina uu sii kordhiyo dadaalka ugu jiro in Soomaaliya uu ku matalo heerarka caalamiga ah. kulanka garsoore Cartan waxa ku helinayay mas'uuliyiin ka kala socotay qaybaha kala duwan ee bahda ciyaaraha, waxaana ay madaxweynaha uga mahad celiyeen kulanka iyo maamuuska uu sameeyay. garsoore Cumar Cabdulqaadir Cartan ayaa dhowaan waxa abaalmarisay xiriirka kubadda cagta ee Afrika ee CAF, isaga oo guddoonsiiyey xiriirku bilada garsooraha ugu wanaagsan ee sanadkan 2025 kadib markii uu si heersare ah u maamulay kulamadii loo xil saaray. Cartan ayaa sheegay in maamuuska uu ka helay madaxweynaha Soomaaliya uu noqonayo dhiirigelin uu ku sii wado dadaalkiisa garsooreed. ugu dambeyntiina maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug ayaa maalinta berita waxa ay sheegtay in dib u bilaabi doonto dhageysiga kiiska dilka marxuumad Sabriin Salyan si arxan daraan loogu jirdilay looguna dilay magaalada Gaalkacyo. dhageysiga wejigiisa koowaad ayaa waxa lagu soo bandhigay muuqaalo argagax leh oo muujinaya jirdil, xiritaan iyo tacadiyo joogto ah oo loo geystay gabadha, kuwa oo ay soo bandhigtay xeeraalintu iyo garsooraha u doodaya ama qareenka u doodaya marxuumadda. eedeysanaha oo ah ama eedeysanayaasha oo kala Hodan Maxamuud Diriye waxa ay maxkamadda hor qiratay in ay jirdil geysatay balse ay diiday in ay dishay marxuumadda, halka eedeysanaha labaad oo ah Cabdicasiis Nuur Xaashi Calas uu isna loo haysto mas'uuliyadda ka dhalatay
ilaalinta qoyska iyo si tacadiyada qoyska dhexdiisa ka dhacay arrimo ku aadan maxkamaddu waxay amar ay ku siisay xabsiga dhexe iyo booliiska gaalkacyaba in labada eedeysane loo soo horgeeyo dhegeysiga xiga ee maxkamadda kaasi oo bilaabanaya maalinta berita oo isniin 24 November 2025 sideeda iyo barka subaxnimo ama 2 saac iyo barka subaxnimo eedeysanaha loo haysto ama eedeymaha loo haysto waxay ku salaysan yihiin sida maxkamaddu ay sheegtay amaba sida maxkamaddu ay ku dooday qodobada 423 424 448 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kuwa ay sheegtay in ay ku eedeysan yihiin labada eedeysane qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkii Soomaalida caawa oo idinkaga imaanaya studiyihiisa labaad ee Muqdisho wararkeena waxaad kala socon kartaa boggeena kala duwan ee HBN Online TV sida Facebook, YouTube, Twitter iyo Telegram iyo boggeena internetka ee hbnonlinetv.com inta ka horeysa intaan dib u kulmi doono wararka kuwan kan xiga sidaas iyo nabadgelyo